waxaa daartan NPH ama daarta warbaahinta nagu soo booqday hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur. cabdiraxmaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay waqtigaaga iyo booqashadaada kusoo dhow BBC. waxaan jeclahay inaan wax kaa weydiino. shalay Chatham House ayaad waxaad ka jeedisay hadal adigoo halkaa ku marti qaadnaa, waxaadna ka hadlaysay arrimo ku aadan doorashooyinka Soomaaliya. waxyaalaha ugu muhiimsan oo aad ka hadlaysana waxaa ka mid ah nooca doorashada ay Soomaaliya yeelanayso oo kale, iyo weliba hanaamkii doorashada oo aan inta badan isku raacsaneyn iyo khilaafyo dhinaca siyaasadda oo jira aad sheegtay. marka walaaca kuu muuqda muxuu yahay? walaaca ii muuqda wuxuu yahay meeshan aan ka sheegay sidii loo bilaabay dhismaha dowladda Soomaaliya carta doorasha lagu sameeyey carta magaalada doorasho kale lagu sameeyey isku mid ay ahaayeen intooda badan. laba doorasho kale ka dambeysay dalka gudihiisa ka dhacday oo midna looga baxay kumeel gaarkii, midna maaragtay 2007 la qabtay. waxay ugu duwanaayen ku hor inay dal gudihiisa ka dhaceen qaasantii ugu dambeysay oo laga saaray qof odayga kaligiis inuu xildhibaanka magacaabo oo caucus dad isku tegay ay doortaan. waxaan kaloo sheegay in sanadii bar markay ka dhiman tahay madaxweynihii talada hayay iyo xukuumaddiisii iyo prime ministerkii ay soo istaageen dadka ay dhaheen doorasho qof iyo cod lama qaban karo, duruuftana ma saamaxayso. marka waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inay ka xaajoodaan qaabka ugu habboon oo doorashadii looga gaarsiin karo oo loo qaban karo. halkaasna uu ka bilowday marathon dheer oo wada hadal ah oo dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ay qusayso, kabacdina lagu soo gabagabeeyey doorasho uu ka soo baxay madaxweyne hadda xilka haya. doodeyda marka waxay ahayd doorashadii oo sanad ka dhiman tahay xilligii mandateeka dowladda oo muddo xileedkii sharciga ahaa inaan ilaa hadda la haynin xagga u socono doorasho sida loo qabanayo, qaabka loo qabanayo. waan maqlaa dowladda ku haysa keliya doorasho qof iyo codaan qabanayna, laakiin qof kasta oo shimbiraha duula xataa waxay ogyihiin inaan doorasho qof iyo cod dalkan laga qaban karin. marka mugdigaas la gelinayo arrinta doorashada wuxuu keeni karaa oo u cadeeyay dadkii ka soo qayb galay meesha iyo dowladda Ingiriiska oo kulankii alla yeeshay inuu keeni karo halis ku timaada dhismaha iyo nabadda dowladda Soomaaliya. halista nabadda u soo laaban doona, laakiin arrinta doorasho hal qof iyo hal cod ah waxaan filayaa dowladda waxaa Soomaaliya ugu xilsaaran guddi madaxa bannaan oo doorasho. guddigaasina waxaa ugu dambeysay Xaliimo Yari oo gobolka Minnesota ka hadlaysay saacado ka hor intaadan hadin adigu, waxayna xustay in doorasho hal qof iyo hal coda ay qorsheynayaan ayna dhici karto. marka ma waxaa leedahay guddigaas intaas ka kooban waxa ay sheegayaan waxba kama jiraan? waxaa laga rabaa keliya waxay yihiin aniga doorasho qof iyo cod loo qabto waxaa la rabaa 1 intercop la sameeyo, 2 diiwaangelin in la sameeyo, 3 sharciga jinsiyada in la ansixiyo. ilaa hadda saa ogtahay Mawlid qofka muwaadinka Soomaaliya jinsiyadiisa waxay ku salaysan tahay 1962 ama 1962 sharcigii wuxuu ku salaysan yahay qofka ethnicity-ga Soomaalinimada ku salaysan yahay, deegaanku ma salaysna. waxaa kaloo la rabaa in la sameeyo resource-kii ama dhaqaalihii sababi lahaa waxaasoo dhan in la qabto ayaa loo baahan yahay. waxaa kaloo la iska rabaa in political agreement heshiis siyaasadeed la gaaro oo dhinacyada ishaya oo dowladda Soomaaliya iyo dowladda federaalka ay wada gaaraan iyo dowlad goboleedyada wada iyo xisbiyada siyaasadda laga talageliyo. sharcigii doorashada xataa ma ansaxsana oo ilaa hadda baarlamaanka u dhex yaala. marka ayagoo waxaasoo dhan maqan yihiin qofka dad inta hor istaagay yiraahda doorasho qof iyo cod waa la qaban karaa. ani waxaan u arkaa inuu aysan ahayn arrin oo caqligal amaangal ma aha, xoogaa xadgudubay waxay ku tahay caqligeenna. dowladduna intaasoo dhan waxba kama qaban. guddiga doorashada madaxa bannaan waa ixtiraameynaa, waa mahadsan yihiin, laakiin ilaa hadda waxay dhex degan yihiin container yar ee ku yaala madaxtooyada Soomaaliya. xataa ayaga naftooda xataa madaxtooyada kama dhex baxsana, dad madax bannaan oo meel bannaana degan oo resource-kii loo baahnaa oo dadkii kaadirkii u shaqay lahay iyo dhaqaalihii ku shaqay lahaayeen iyo sharciyadii ay ku shaqay lahaayeen iyo siyaasaddii ay ku howlgeli lahaayeen maba jirtaba. marka waxaas waxaan u aragnaa waa xadgudub xagga caqliga ah. aan ka wada hadalno realitiga siyaasadda ee hortaalla iyo sidii xal loo gaari lahaa. laakiin taa deganaanshaha markayna ka hadalno ay dhex degan yahay xarunta madaxtooyada soo ma dhici karta inay tahay arrin amniga xaggiisa ah. guddi amnigiisa u baqay soo doorasho qof iyo cod u qabanaya. laakiin dowladda waddanka dhanba amniga dowladda waxaa gacanta ku haysay saraakiisha dhan way la soconaa ciidamo ajnabi ah waddankii dhan mas'uuliyiin dowladda gacanta ku haya amnigooda. haddii guddigii doorashada amnigiisa u cabsi qabo see doorasho loo dareeraya dalka looga qabana dadka uu sheegaya. waxaan sheegaynaba inay iska tahay caqli cayaarka waaye. anaga ma rabna caqligan lagu xadgudbo. awalaa dadnimadeenna iyo siyaasadeenna iyo annaga nagu ka xadgudbay, ma rabna hadda in lagu yimaado caqligan lagu xadgudbo, ma aqbali karno. waxaan rabnaa in la yidhahdo dowladdu sidai dowladdii ka horreysay aad iyo aadaan meeshan uga mahad celinayaa mudan xasan sheekh iyo ra-iisul wasaarihiis iyo Cumar Cabdirashiid dadka inta hor yimaadeen ay dhaheen
doorasho qof iyo cod ma qaban karno ee hala tashado laakiin war intaasaa laga keri la'yahay dadka hadda jooga cabdiraxmaan laakiin taa haddaynu dib ugu laabano dowladda xasan sheekh iyadoo markii hore lahayd waxaynu qabanaynaa doorasho hal qof iyo hal coda markii dambe waxay tiri ma qaban karno laakiin waqti bay ku darsatay ilaa 5 bilood baa lagu daray oo doorashada waxaa lagu wadi in la qabto September 2015 waad nala socotaa 2016 baa ka wada September doorashada waxay dhacday 2017 February marka haddii dowladdu ama guddigu ay arki waayaan inaysan waxba suurtagelayn soo lagama yaabo waqti inay haystaan sanad iyo baraa dhimaneed markuu lahaa madaxweyne dowladdii hore ay dhahaysay doorashada ma qaban karno hala tashado saa sheegaysana 4 bilood oo dheeraada raacday oo ku darsantay marka waxaa ayadoo sanad dhiman yahay dadka aan xal keenayn xaggay noo wadaan waa su-aasha imaanaysa guri markii la dhiso oo asaaskii la dhiso oo deyrkii dhinacii la dhiso oo saqafka uu dhiman yahay dadka xataa waa lagu qanci karaa saqafka intaan dhammaynayno aan sugno laakiin ayadooban asaaskii la bilaabin haddii la yidhahdo doorashada ha laysaga daro waqti iyo meel lala fadhiyo annagaa jooga meesha waxaa ka muuqata sida hadda sharciga doorashadan annaga aan ka cabnay wadajir ahaan qodob waxaa lagu soo dara leeyahay haddii doorasho qof iyo coda dhici weyso dowladda jirta iyo baarlamaanka waxaa loo siyaadinayaa muddada marka waxa loo marsiyoonayo dhulka loo jiifo oo meelaha loo seexseexanayo dhan waxaa waaye in la yidhaahdo doorasho lama qabo kare ee dowladda xilligeeda hala kordhiyo laakiin taasi soo maahan cabdiraxmaan soo jeedin soo maaha wax sharciya maahan golaha wasiirada ansixiyey baarlamaanka loo gudbin doonaa haddii ay timaado ku darsasho iyo yaan lagu darinba soo arrin laakiin qaanuun in la mariya maaha waate baarlamaanka dhex taalaan ku yiri inuu yeeli doono in kale laakiin xukuumadda intentionkeeda kala hadla xukuumadda waxay ugu soo dartay fiir sharciga anaga xisbiyada waana loo keenay waana ka talageliyay qodobkaasna kuma jirin gadaala loola noqday qodobo dastuurka khilaafsan qodobkan oo ku darsiga lagu soo daray baarlamaanku dhex yaal I hope inay baarlamaanka de wax gartaan ay mas'uuliyad yeeshaan inkastoo maalmahan la xamanayo laakiin dareenka xukuumadda ujeedkeeda waxa waaye doorasho lama qaban kare hana loo kordhiyo annagana kordhin wax la yiraahdo waa qad axmar waa red line waa khal cagaaran baa tiri qad cas aan laa fikrin baa tiri waay laakiin haddiiba ay timaado ina doorasho dhici karin oo aad tirahdaan laguma dari karo waqti soo wadankii markaa meel cidlaa ku dhici maayo yaa wadankii maamulaya markaa ma waxaa rabtaa inay dhacdo fawdo oo wadankaasi cidna ka tirin hal sana haysanaa hadda maantadan aan joogno sanad iyo 2 bilo ama bila ka dhiman ha dadka Soomaaliyeed hor yimaadaan madaxda hana garawsadaan fashilkii ay kaga yimi xagga doorasho qof iyo cod inay qabtaan dadka talada ha soo dhaxday hadday tala leedahay haddan joognay waqti dhiman yahay maxaa loo sugayaa in December ama January 2020 la gaaro hadda la jooga xal ma haysaane ummadda hor imaaday soo hor dhigaan leenahay waaya adigu waxaad ka hogaamisaa xisbi siyaasi xisbiye kale oo xamar ku shirana way jireen oo dalad midaysan samaystay waxaa la leeyahay xisbiyadiinu xitaa ma midaysanin waa kala jabantiin marka sidee markaa u keeni kartaan guul siyaasadeed dabcan xisbiyadu sida xisbiyadu inay wax kasta ka midoobaan qasab ma waxaan ka midaysanahay waxay tahay doorasho xilligeeda in la qabto awoodda iyo powerka loo kala wareejiyo si nabad ah laysku dastuurka dhamaystirkiisa laga wada shaqeeyo waxyaalaha fundamentalka ama asaasku ah dowladnimada ay doorashada koob ka tahay annaga xisbiyada waa ka midaysanahay laakiin xisbi walba inuu aragtidiisa leeyahay oo damaciisa leeyahay oo sida asaga wax u rabo oo istiraatiijigiisa iyo qorshihiisa u wato taas inay dhibaato tahay aniga ma qaba mana aaminsani dhaliil waxaa jirta laydin jeedinaya xisbiyadiin oo ah inaad dowladdii garab lugaha ku dhegan tihiin oo aysan tallaabo qaadi karin doorasho in la qabto amnigii in la sugo al-shabaab laga dagaalamo wadankii dibogista dastuurka lagu sameeyo khilaafyadan siyaasadeed oo adinku aad qeybka ka tihiin baa laydinku eedeynaya inay qeyb ka tihiin oo dowladda aysan dhaqaaqi karin hal shay oo dowladda aan annagu lugaha madaxweynaha maalin kastaan maqlaa asoo meelaha kale lugahan ku dhegan yahay ma dastuur in dib loo egaa looga dhegan yahay ma in Somaliland laga hadlaa looga dhegan yahay ma in shabaab dalka laga xoreeyaa looga dhegan yahay ma in doorashooyinkii la qabtaa looga dhegan yahay kulligood waxaan isku raacsannahoon wada rabno waay ee dowladda waxayna u jeedinba wixii loo igmaday iyo mandatekii la siiyey uma jeedee waxay u jeedaa intay maamul goboleed ku caawi lahayd inuu dib u heshiin ka sameeyo deegaankiisa dimuqraadiyin ka sameeyo deegaankiisa in asaga meesha laga saaro waxay ku howlan tahay siyaasigii iyo mucaaradka inay la dagaasho waxay ku howlan tahay beri dalkan 12 December Britain baa joognaa doorasho ka dhacaysa haddii labada nin ay ku tartamaya xilka midkood oo guursado arbacada haddii la gaaro question time-ka kii kala joogo wuxuu weydiinayaa dowladda meesha wax u wado waa week
arrintan ma aha aniga waqti ha laysiiye aan laysiinin ma ah waa lagula doodayaa waa lagula garnaqsanayaa waxa ku qaldantahay waa lagu sheegayaa waa lagu toosinayaa garbax dadka hor imaw laakiin maalin kasta in lagu calaacalo lugaa laygu dhegan yahay shantaas qodob ee waaweyn aan sheegay hal qof oo dowladda ka hor istaagtay ama ka hor timid ma jirto cabdiraxmaan waxaa soo hadal qaaday dowladda waddankan iyo xisbiyada mucaaradka iyo qaabka loo shaqeeyo waxaa dhici karta inay kala duwan tahay siyaasad ahaan meesha la kala joogo ama dadka ra'yigooda siday tilmaamayaan oo kale waxay leeyihin mucaaradkan waddanka haddaa soo hadal qaaday waa mucaarad inay wax dhisaan iyo wax toosin diyaar ula ah laakiin adinku dhaliil ayaad diyaar u tihiin inaad had iyo goora la soo jeedisaan maxaad mucaarad ku tihiin ma waxaad mucaarad ku tihiin inaad wax dhaliishaan mise inaad dowladda toosisaan oo meesha ay ka qaloocan tahay ku toosisaan dhaliisha nafteeda waxay tahay toosin aniga ninka imaamka ee masaajidka dujinaya hadduu salaada qaldo waan saxaya waxaan leeyahay wad qalda salaada qaab loo dhahana jirto oo shariicada islaamka ay leedahay hadda imaamka iyo hogaankana waa isku mid haddii qofku hogaaminayo wax qaldo waa la toosinaya ani ma dhici kartaa nin salaad ku jiro oo dukanayo imaamkayga hadduu rukuuca ka tago inaan iska dhaafo oo dhaho salaadoo bilaaw ka qalay ma jirto hogaanku waa la toosinaya maalinta ugu horeysa doo qaldama gacantaa la qabanaya soomaaliyana midaan ku sheegaa mawlid ingiriis iyo western iyo meel dhan waa ka duwan tahayba waa wadan dib loo kabayo kabka sidiisa lugta markii la kabayana ama shanshada ama bowdada ama gacanta wax jaban markii la kabayana haddii si qalada loo kabo mar kale in la jabiyo u baahanayaan saas daraaddeeda waxaa muhiima marka la kabayo in si saxa loo kabo annagana waxaan ka shaqeynayna waxaa waaye kabka qaran jabka dhacay kabkiisa inaan si qalada loo kabin si mar dambe uusan u jebin arrinta soo hadal qaaday toosinta madaxweyne farmaajo dhowr meelood oo ka hadlay wuxuu yidhahdaa waxaan jeclahay inay mucaaradku noqdaan kuwa ra'yigooda iyo talooyinkooda ay noqdaan kuwa wax dhisida laakiin mucaarad waxa duminaya inaan naga hor yimaadaan ma jeclin maxaa uga jawaabaysa taas waxaan uga jawaabayaa calaacalka madaxweynaha iska dhaafo wax duminaya meeshaan ma joogaan intii shalay asaga uu sameynaya unbaa lahayaa un shalay 2012 uu tartamay asagoo madaxweyne raadinaya 2017 uu tartamay asagoo raadinaya ka hor nin siyaasadda ku jiro hadlo oo dhaliilo oo xukuumaddii la dhisa dhaliilo oo tii taagan dhaliilo ahaa intii unbaa lahayaa un shalayna shaqo fiican u haye maantana ha dul qaato shaqada dhaliisha waa shaqada dadka wax toosinaya dowladnimadana sida ku dhisanba qofka xukunka haya waxaa ka qarsan waxaa waaye saarka xukunka haya waxba ma arko laakiin dadka banaanka ka jooga arkee kuwaas inay toosiyaan dhahaan madaxweyne saa wuxuu sameey waxa lagu toosinayana waa wax dastuuri ah oo sharci ah oo legitimate ah haddii aniga inta qalbi dhagax la dhiibo oo muwaadin Soomaaliyeed aan iraahdo aan ka aamuso dowladdu waa cusub tahay haddii aniga inta hooyay lagu soo weeraro la yiraahdo dad laga laay iska aamus haddii gudoomiyaha baarlamaanka la tuurayo aad tira iska aamus sharci darra haddii dadka baydhabo lagu xasuuqayo ka aamus aad dhahdo ilaa dowladnimadu ku shaqaynaysaa dowladdan maalintii ugu horeysay dambiyeedyo waaweyn faraha la gashay aniga waxaanba dhaliilaya dadka ka aamusnaaba dadkaasaa ceeb ah inay ka aamusnaayeen dowladdu waxaa samaynaysa in laga aamusnaa oo annaga keligeen annagoo wada jirin ku fiirsaday inaan dowladda celino yaaba qalad ila ahaydba aniga arrimaha soo hadal qaaday inta badan dowladaha ku kaca beesha caalamka iyo wadamada deeqaha bixiya waxay ku qabsadaan inaysan inay xadgudub ku samaynayso dimuqraadiyadda iyo hanaankii dowladnimada laakiin laga soo bilaabo dowladahaasi oo dhan ilaa iyo hay-adaha caalamiga IMF World Bank dhammaantood bankiga adduunka waxay sheegaan Soomaaliya inay meel fiican marayso aad baa loo amaanaa dowladda marka waxaad sheegaysaan kale adduunka oo muuqata miya su'aalaad u fiican aad iyo aad caalamku sidiisa waa maalinba wuxuu mudnaanta siiyaa maalin waa noo imaadeen waxay dhahan burcadbadeed aan ka qabanaynaa burcadbadeed meel kasta waxaa la dhejiyey waana u sheegnay wagaas waxaan nidhi burcadbadeed idinkay dhimin ku haysaa maanta shacabka maanta kuma hayso waxaa la yimid argixisada dagaal haddana loo yimid ayaan dhan ku wada maalmahan waxaa la wadaa wax la deyn cafis oo xataa dadka Soomaali aysan garanaynin safiirada aan la kulmay iyo saraakiisha aan shalay wasaaradda arrimaha dibadda Britain kula kulmay kuwaan Muqdisho kula kulmaba wadaayro deyn cafintan oo la qaylinayo ra'iisul wasaaraha meel kasta la taagan yahay oo deyna la cafinayo ilaa Washington ilaa Paris hana la fahamsiiyaan waxa deynta la cafinayo maxay tahay mashruucan deyn cafinta oo la leeyahay horumar qof kala hadlaysa siyaasad ma jirto oo horumar ka jiro qofku dhihi kara male oo ayaga kamid ah qofku dhihi kara male human rights horumar ka jira qofku dhihi kara male amniga horumar ka jira qofku dhihi kara male amniga horumar ka jira waa ogyiin shabaab inay cashuur ka qaadaan dekada qofku dhahaya male xiriirka dowlad goboleedyada dowladda federaalka horumar ka jira waxay ku leeyihiin arrinta deyn cafinta ayaa ka jira horumar laakiin Cabdiraxmaan waxa la leeyahay dhaqaalihii baa kacay habkii cashuur ururinta waa la amaanay horumar ba xaggaas laga sameeyay IMF iyo World Bank labadoodu way sheegayaan marka taas kuma muuqato miya waxay rabaan ku sheegay horta garayna u leeyahay inay rabaan
qoladan ajnabiga waxay ku daaleen mucaawinada soomaaliya la siinayo keliya waxay rabaan arrinta deen cafinta ah laba arrinay noo sheegeen marka ayaga aan dhegeysan anaga xukuumadda inay faanayso unbaa dhegeysanaa lakin waxbaba nooma sheegtaba laakiin ayaga waxay leeyihiin arrinta deen cafinta laba arrinaa ku jirto kow waxa waaye soomaaliya waxay fursad u helaysaa in garanti la siiyo oo waaweyn oo wol bangiga iyo ay siiyaan hay-adaha waaweyn annaga waxay dhaheen dowlad ahaan deeqaheena ama garantiga amahda waa mid kale in garanti la siiyo oo projectiyo waaweyn laga caawiyo dhaqaalo la siiyo sidan waxaan kuu sheegayaa adduunka hadda waxaa xoog soo galay china nima la yidhaahdo oo ku tartamaya inay africa ka dhisaan waxaan la yidhaahdo kaabayaasha dhaqaalaha ay hanti badan geliyaan 60 bilyan hadda maraya africa intay gelinayaan wadamada reer galbeedka wixii la dhihi jiray adjustment programkii IMF iyo World Bank siyaasadii xoogaa wax laga bedelo ah in lagu tartamo dunida oo arrimaha horumarka bulshada dhaqaale badan la geliyo si marka loo geliyo wadamada deymaha ku taagan yihiin waa in deymaha laga bixiyo si World Bankiga oo u bixi karo ama garanti ama amaah waxaa kaloo laga daalay wadamadan deeqaha ee bixisada AMISOM oo kale hadda EU qadiyaan ay taagan tahay marka Soomaaliya in amaah iyo deynba la geliyo oo amaahna qaadan karto deynna garantina la sii karo ayaa la furayaa wadadeedii mashaariicda waaweyn oo sida korontada iyo biyaha iyo horumar kalena ay wax laga qaban karo waa wax fiican Soomaaliya u fiican tahay dowladnimadeena u fiican tahay aad u soo dhaweynayna laakiin laguma qari karo gaabiska ama fashilka ka jira siyaasadda arinta amniga arinta xiriirka dowlad goboleedyada dastuurka la dhameystirin wax lagu qari karo waan u sheegnay ayaga waxaad ku qari kartaan ma aha mana kuwaanana asaas ah deynta la cafinayay iyo maalgashiga Soomaaliya lagu sameeyay hadayna siyaasadii xasilnayn oo amnigiina jirin meel laga sameey karaa ma jirtaba way taa laftigeeda haddii ay jirto baahi iyo saboolnimo amni xumana way jiraysaa haddii laakiin laga baxo saboolnimada oo la helo hanaan isku filnaansho oo dhaqaalahaas hadda ka hadlaysid wadankii la geliyo soo markaan wadanka inuu amnigiisa hagaajiyo soo ma dhici karto halka dhaqaalaha waxaa la isku haystaaba hay-adihii maamul ma shakhsiyaadka maamulay laakiin waa la amaanaya waxa la leeyahay hay-adahana way fiican yihiin wax fiican bay qabtaan inaysan fiicneen waxaaba cadba hanti dhowrka guud ee wax la xisaabtaa ma madax banaana waxaan ka kari weynay dowladda hadda jirta war hanti dhowrka sida uu shaqadiisa si madax banaan u guto baarlamaanka la hoosgeeyo hay-adaha riqaabada hay-adaha wax kontroola oo dabagala soo kamid maaha baarlamaanka hay-adaasi la hoosgeeyo maya xukuumadda la hoosgeeyaa la yiri annaga waxaa leenahay marka hay-adaha maaliyadda say u toosaan oo dhaqaalahaas looga wada faa'iido oo qof gacantiisa u gelin hay-adii horta hala joojiyo ayagoo madax banaan oo integrity iyo hufnaan iyo daafurnaan horta hala dhiso lama ogola cabdiraxmaan siyaas Soomaaliyeed baa tahay wasiir baa soo noqotay xilal badan oo soo qabatay madaxweyne isku sharaxday imikan laga yaabo madaxweyne inaad isku sharaxi doonto inkastoo weli aadan si toos ah u cadday laga yaabo inaad maalin madaxweyne noqoto adigoo cabdiraxmaan ah ma waxaad leedahay oo Soomaaliya oo weli maanta jagada ugu sarreysa doonaya haddii ku suurta gasho ma waxaad leedahay deyn wadankayga in laga cafiyo yaan la cafin waxaad yani la soo taagan tahay war deyntan yaan nimanka laga cafin deyn ma kala saarti dowladda Soomaaliya farmaajo madaxda ka yihiin waa soo dhaweeyay aniga arrimaha deyn cafinta waa wax fiican waa in hore loo wada laakiin just waxaan ku sharaxay international angle ee marba wax ka fiiriyaan marna budacbadeed ka fiirinay marna argagixisay ka fiirinay waxayna ku xiran tahay geostrategiga isbedelaya adduunkii ku xiran tahay hadba focuska meesha la saarayo tartanka juqraafi siyaasadeedka dunida wixii soo kordhay ku xiran tahay waa soo dhaweynaa arrinta deyn cafinta laakiin waxaan leenahay laguma qari karo fashilka kale xukuumadda ay leedahay violationka human rights ay sameynayso xadgudubka xagga xuquuqda bani aadanka dastuurka sharciga inay ku tumato amniga inaysan waxba ka qaban siyaasadda inaysan hagaajinin xiriirkii dowlad goboleed inaysan fiicnayn waxaas laguma qari karo horumara waxaa ka jira deyn cafinta okay waa fiicanta deyn cafinta socoto laakiin fashilkaana waa jira marka lama asturi karo waxaan ka doodna ajnabigana waa intaas laakiin maamul goboleedyada hadda waynu la soconaa galmudug dowlad kama jirto hadda xilligan la joogo yani system doorasho hadda la gelayaa baa la leeyahay afar kala soo hartay laba dowladda isla shaqeeyaan labana dowladda isla shaqeeyaan marka soo tuur ma aha ama isla shaqeynta annaga aan badalkan ka rabnaa waxay tahay inaan dadka la qasbin madaxweyne maalin waxaa aragtay telefishinka yimid la soo qasbay cid bini aadan oo ka qarsan tahay male oo la yiri madaxweyneyaal hore oo waliba deegaankiisa Hirshabelle ka soo jeeda aanbaaray waxay sameeyeen qalad waaye dheh elaboorkii waa qoyan yahay dheh biyaa ku jira dheh wariyaashii markay tageen ciidii soo taabteen waxa soo kala diidanay waxaan rabnaa laakiin cabdiraxmaan waa cadeen uma hayno ka BBC waa muuqataa waa run BBC cadeen ma haysa anaga cadeynta ka shaqeynay laakiin anaga waxaan baleenahayba madaxweyne maamul goboleed oo saas anaga ma barabnaba
inuu madax bannaan yahay oy dowladdana wada shaqeeyaan aan rabnaa laakiin identityga iyo wuxuu u taagan yahay laakiin dadka in la cabiidsadoo la dulaysto ma rabna annaga marka ma waxaa rabtaa cabdiraxmaan maamul goboleed leh dowladdan rabaan la shirayaa xiriirka caalamiga ah baan waxaan ka samaynayaa arrimo kala duwan wasiir baa soo noqotay weliba xiriirka caalamiga wasaaraddaadaana qaabilsanayd Soomaaliya maalintaas raali inaad ka ahayn baa dhici karta ama Puntland ama Jubbaland maamul goboleed waxaan rabnaa waxa dastuurka siinaya xadkiisku egyahay dowladda federaalkana waxa dastuurka siinaya xadkeeda ay ku egtahay laakiin dowladda federaalka inta dhahda maamul goboleedka dowladaha ajnabiga aan ka celinayna ayada ajnabiga ay soo wadatana waa diidana tusaale hadday tiraahdo war axmed madoobe oo dowlad goboleedka waxaad madax ka tahay Jubbaland Kenya saa ula macaamilaysa waa qalad hadday dhahdo ayada inay commandos Etoobiyaanka haysta ma fiir hadda anaga waxaan rabnaa moogtahay hada xalaalun lii wa hada xaraamun lii waa cadeynteeda waa wax cad oo la ogyahay Soomaali ogto diyaaradaha soo kacay ee laboorka in technical lagu gooyay wax cad ay taas anaga hadda BBC kama shaqeyno editorialkeeda maaha laakiin wax cad ay heede anaga dowladda waxaa leenahay waxa aad dadka ka xarimaysaan idinka xalaal inima ah joojiya ajnabiga haddii marka dowladda lacag kaasha oo dowlad kale oo qadara maalan ay keensato ciidanka Etoobiyaanka ay rabto inay ku qabsato meel inay tiraahdo inta safiiro qaar laaluushto noo loo bigaray ay dhahdo ama kambaniyaal ay kiriisato oo Mareykan degan la wada ogyahay hadda lacagta ku baxda haddana inay dhahdo ma wadaniilaan dadka ajnabiga adna waa ka xaraan annagana waa naga xaraan arrimaha hadda eedeymahaas badankooda anaga cadeen oo ma hayna Cabdiraxmaan waaye arrinta xisbiyada dib ugu laabano adigu xisbi wada jirniyadaad imika hogaamisaa xisbiye kalena waa soo hadal qaaday inay ka jiraan magaalada Muqdisho waxaa jirta eedeymo iyo hadalhayn ama xan oranaysa xisbiyadani maahan xisbiye siyaasadeed oo ballaaran oo han weyn waxa la yiraahdaa waa xisbiye ama ashqaas isku kooban ama shakhsi kaliya leeyahay oo aan wadanka ka diiwaan gashanayn diiwaan gelin badan lahayn xafiisyo waaweyn aan wadanka ku wada lahayn taa maxaa ka leedahay ma annaga xisbiyadeena kulleedu xisbigan ka hadli karaa iyo xisbiye kale oo badan waa diiwaan gashan yihiin la sharciga xisbiyadan laba process oo diiwaan gelinta u qoray ama saddexan oo kow initial wax la yiraahdo registration oo diiwaan gelin oo marka hore ah taas waan sameynay taasna waxaa shardi inaad xarun leedahay inaad dastuur leedahay inaad structure qaab dhismeed xisbi leedahay waan leenahay guddi fulinaan leenahay golo dhaxaan leenahay dastuuraan leenahay xarumaan leenahay dowlad goboleeda qaaran ku leenahay taas waa soo dhaafna annaga haddeersan midda labaada waxay 10,000 oo dadka diiwaan gashan guddiga doorashada madaxa bannaan dadka oo diiwaan geliyay 10,000 oo ka mid ah inay ku yihiin taageerayaal guddigii waxba ma diiwaan gelin 10,000 anaga marka ma keeni karno sababtoo guddigaan diiwaan gelintii samayn waa sugaynaa maalintay diiwaan geliyaan hadday dhahaan laakiin waa bedelnay sharcigii oo diiwaan gelin loo baahnay 10,000 oo taageerayaal keena ayadana waa haynaa annaga marka processka waa ku soconnaa midna waa midka doorashada markii la galay intaad ka hesho baarlamaanka aad ku go'an tahay xisbinimadaada qaran inaad u gudubto annaga jidkaan haynaa shaqadii wax nala qabta la'na way laba maalmood ka hor magaalada Nairobi waxaa heshiis ku dhex maray madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya in xiriirka dib loo soo celiyo duulimaadyada la isku furfuro inkastoo siyaabo kala duwan looga hadlay arrinta maxkamadda dacwadda badda la isku haysto adigu sidee u aragtaa heshiiskaas heshiiska in diyaaradaha la furo waa fiican yahay in baasaboorada diblomaadkii waxaa la ii sheegay serviceka kuwa muwaadinka in lagu darana waa fiicneen laakiin labadaas nafteeda waa horumar in xiriirka labada dal uu fiican yahay laba dal oo darisaan nahay oo aanan meel u kala guura aysan jirin waa soo dhaweynayna waa fiican tahay laakiin annaga waxaa weli naga maqan waxa kale oo laga wada hadlay dowladda inkiraysaan aan naga haynin waxay yihiin dadka qaar waxay leeyihiin arrinta badda waa laga wada hadlay kenyaankana waxay sheegeen in si amicable waxaa la yidhahdaa si saaxiibtinimo ah in arrinta lagu xaliyo taas macnaheedu maxay tahay taasaa u baahan fasiraad iyayna uga baahan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uga baahan tahay wasiirka arrimaha dibadda oo BBC ay wareysatay isagoo ku sugan Nairobi wuxuu yidhi arrinta maxkamadda ma ku jirto heshiiska maxkamaddana arrintaas u taalla wasiirka shirka ma qayb gelinba shirka labada madaxweyne dhex maray maba ku jirinba xamar uu joogay arrimaha dibadda waa la soo duuliyey maya hal su'aalaan ku weydiiyey wasiiru dowlaha joogay muxuu hadli waayey taas anumaan waxa keenay annaga wasiirku ma joogin shirka mana dhageysan karno qof aan shirka joogin laba madaxweyne hadashay shirka gashay madaxweynihii kale statement uu sii daayay annaga madaxweyne farmaajo waxaan ka rabnaa inuu assurance bixiyo meesha lagu og yahay fiiri dacwadan murankeeda annaga kula hadlayo waan ku dacayday waan ku damage gareeyay 10 sano ka bacdi Soomaali waxay ogaatay inaan waxaan celinaynay oo difaacaynay badda Soomaaliyeed
inay tahay oo haddana leeyahay raggii hala raadiyo taalooyin ha loo dhiso dowladdii naga dambeysay markii xalkii loo keri waayey wadahadalka ay maxkamaday geysay dacwadii dowladdan waxaa laga rabaa meesha ay arrintii ku og tahay mowqifkeeda inay caddaysaan rabna anaga keliya mugdi ma rabno in wiilo yaryar oo ka shaqeeya madaxtooyena loo soo diray ma rabno madaxweynaha asagaa madaxweynaha kale la fadhiistay waxa ay waa ku bogaadinaynaa xiriirka oo la soo celiyey laakiin wixii lagu wada hadlay oo transparente oo daahfurnaan oo cad madaxweynaha ummadda soomaaliya intuu la hadlo ha u sheego dhiba waay arrinta jubbaland haddaan wax yar ka hadalno oo kuna saabsanayd khilaafka u dhexeeya dowladda soomaaliya kenya iyadoo xayiraad ay jirto oo dowladda soomaalida leedahay lama tegi kara meeshaas adigu waxaad ka mid ahayd mas-uuliyiintii tagtay kismaayo ka qayb galay calimasaarkii axmed madoobe iyadoo dowladda soomaaliya markaas ku doodayso ay leedahay waxaan ilaalinaynaa dan qaran oo soomaalinima ilaalinaynaa inaad marka wafdigii kenya halkaas tegey kabaada mid ahayn laakiin waxaad ka mid ahaa dadkii halkaa tegey marka sidee loo arki karaa dadka soomaaliya sidee ugu fasiri kartaa inaadan dowladdu waxay u dagaalamaysay iyo midnimadii guud iyo ilaalintii qarnimadii in adigu dhinac tagto aad ka qayb gasho caleemasaarkaas xamaran ka baxay diyaaradan xamaran ka raacin kastoo airport garoonka diyaarada hal saac lagu haystay oo la dhibay waan tegey meeshii wafdigaana annagoo fadhina oo shirka joognay soo galeen laakiin midaan kuu sheegaa in la ogaado waa nimanka meesha yimid gabdhaha meesha yimid waa gabdho iyo rag soomaaliyeed waaye sharciga hadda aan kuu sheegay ee jinsiyadaha ani wuxuu u yaqaanaa inay yihiin soomaali aniga iyo yuusuf xaaji iyo aadan bare ducaale iyo yuusuf xasan oo dadkii meesha embiyada yimid beri subax doorashada soomaali markay dhaca hadday soo tartamaan cid ka hor joogi kartaa male sidaba waa soomaaliba waa iska caadi xilka madaxweyne farmaajo u tartami karaan baraministermaday soo doonan karaan gudoomiyaha baarlamaankay noqon karaan wax harta ethnicity ama qowmiyadda soomaalida kala saaraya waa kuu soo wadaa dowladda kenya maalidooda markii la warsaday oo idaacaddiinan b b c ay warsatay xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda wuxuu dhahay dowladda soomaaliya waa ogeed raallina waa ka ahayd waxaana caddaynaya kamaysa hadalba dowladdu xadgudub lama samaynin kamaysa jawaabin wax statementii kama soo saarin wax cabashahay gudbisa ma arag annaga inta nala hadashay oo dadkii mucaaradka ay siyaasiyiinta nama dhihin war waxaan isu khilaafsannahayna waa xagga noo dhigay arrintan aan saan u wajahno tale ay noo keentay ma jiraan annaga marka waxaan u aragnay dowladdoo cadaadinaysa maamul goboleeda ka mid ah weliba aysan ka marnayn qaab qabiil oo soomaali si isku heshata aan ka marnayn oo awooddii dowladda la rabo in loo isticmaalo dana qabiil in lagu gaaro markaad annaga aan u aragno annaga dee danta soomaalida ee caamkaa meesha jirta aan beegsanay in nagu edi kartana malaha shalay golaha maanka jumciyadda qurumaha midoobe fadhi bay yeesheen waxay sheegeen inay muhiim tahay in la kordhiyo cunaqabataynta hubka ee soomaaliya saaran iyadoo safiirka soomaaliya uu dalbaday in arrintaasi laga qaado cunaqabataynta oo soomaaliya u baahan tahay hub inay la soo degto oo waddanka ay al-shabaab ka saarto golaha maanka waxaa kaloo kordhiyey guddiga khubarada ee kala talisa arrimaha soomaaliya sidee u aragtay arrintaas waxaan u arkaa fiiri dowladda waxaa laga kari waaye guddiga la shaqeey guddigaanu 90kii dowladnimada soomaalka ay burburtaa aa la keenay magacyo kala duwan ha la siiyo meelo badanuna dunida ka jira waa system ay united nation ku ilaaliyaan meelaha xasiloon darrada dalalka ay ka jirtay hubka ka imaanaya hubka ka baxaya xilliga soomaaliya dowladda maya fiiri aan kuu dhammeeyo hadda dowladdii ka horreysay dadaal ay samaysay waxaa lagu gaaray in la khafiifiyo oo hubka qaar ay dowladda la soo degi karto hubkii dowladda ay la soo degaysa markii la arkay asoo suuqa yaalla ama ay shabaab gacantooda haystaan ama ay dareeskii ugu dambeeya dowladda timi shabaab ay haystaan ama fiiri dowladda ayadaa waxaa laga rabaa inay la shaqayso guddiga dowladdu waxay diiday guddigii inay la shaqayso taa anagu ma hayno caddaynteeda waa may waa caddahay warqaday qortaa lahayaa mana la shaqayso guddigana maba tagaba meela dowladda soomaaliya joogto gobolladaas kale territorialka aysan xukumin inay tagaan waa laga yaaba anigu guddiga waan arkay maba la fadhiistaanba dowladda soomaaliya way diiday sidee uga shaqayn karaan waa ta golaha ammaanka maraykanka ingiriiska ay lahaayeen waa in lala shaqeeyaa guddiga ay lahaayeen waa hagaag laakiin sidee uga shaqayn karaa guddi aysan dowladda soomaaliya raalli ka ahayn waynu la soconaa nicholas haysam in dowladda soomaaliya ay ka soo saartay qof aan waddanka laga soo dhoweynin oo la bedelay marka sidee guddi aysan dowladda soomaaliya raalli ka ahayn uga shaqayn karaa meel u tegi karaa gobollo kale gobollada gobollo taga aniga ma ogi laakiin inay guddi dowladda soomaaliya inay diiday inay guddiga la shaqayso waa wax cad mawlid maalin dhaweydna waxaa ka hadlay wadamada muhiimka ah ee 5 xubin joogtada ah ka hadlay qaarkood maraykanka ingiriiska oo ku canaantay dowladda inay la shaqayso guddigaanu waa guddi dowladda farmaajo ka horreeyey
oo tii xasan sheekh ka horreeyey oo tii sheekh shariif ka horreeyey oo tii cabdiqaasim ka horreeyey waana jirayaanba guddigan waa taagan yahay annaga waxaan laka rabaa inaan iska kaliyar garayno waxa ay naga rabaan inaan kala shaqayno marka ma diidi kartid golaha ammaanka wixii ka yimaado inaad la macaamishaa waay adigu soo aragtaa marka in soomaaliya xilligan hubka laga qaado cunaqabateynta hubka la qaado aniga kolleyto cunaqabateyn in la qaado iyo inaan la qaadin waxay ku xiran tahay dowladda markaas jirta si ay uga soo baxdo shuruudaha laga qaadayo cunaqabateynta lagu qaadayo laakiin dowladdii haddayba hubkii iyo awooddii shacabkeeda u isticmaalayso oo dowlad goboleedyadii iyo mucaaradkii u isticmaalayso ay wixiina soomaaliya dhan laga ilaalinaya taas ay tahay dadku inay hubka isku dilaan haddee taas wax la qaadan kara ma waaya adiga ka siyaasi ahaan soomaaliyeed markii hay-ado ama dowlad ay dhahaan soomaaliya horumar baa laga sameeyey adiga ama siyaasiyiinta kale mucaaradka ama xitaa maamul goboleeda dowladda kasoo horjeeda ay leeyihiin waxba lama qabto hubkii baa la dhacay wax socda male musuqmaasuq baa jira awoodi la isticmaalay sidee isuunkii qabataa labadaas arrimood in qof ajnabi inuu yirahdo soomaalida meel fiican maraysa madax u ruxo qof soomaali inuu yirahdo meesha xog kama jiraan ajnabiga dan uu leeyahay oo wadanka uu kala yahay jirto lamana qusaysa anaga dantiis waxay ku salay waana kuu sheegay maalinba waxa markaas ay ayaga wadaanay dantiis ku salaysanta anigu ajnabi ma raacsani dantiisana kama shaqeeyo maantana wuxuu ku leeyahay waa fiicantaa doorho berina wuxuu ku leeyahay ma fiicnid waxay ku xiran tahay waxa asaga oo wato oo ajandihiisa qorshihiisa ku annaga ajanda soomaaliyeed ana wada waxaana quseeyo waxa dhayliga ah magaalada muqdisho aan ka imaaday nolosha say u taala ay qusaysa jidka xirna ay quseeyo dadka canshuurta lagu kordhiya hadda waxa sheegaysa IMF-ta ay leedahay revenue-ga canshuurta la ziyaadiyo maalin kastoo beyle canshuur siyaada shabaabkan way ziyaadiyaan dadkan laga wada qaadaa markaas waxay noqotay badeecada boosaaso ka timaada inay ka raqiisantahay midda muqdisho dekedeeda ka degta that's a facts ganacsatada warsan kartaa ani dadka mucaanaadka iyo dhibaatada dadka haya quseeya aniga nin ajnabiyo joogo dhahaya horumaraa jiri waxaasaa jiro dantiisa ani ma qusayso waxay qusaysa dadka aan ka dhashay Soomaaliyeedna metelo dhibaatada ay ku jiraan ay qusayso waaya taa marka ay deen hore u sii socono shalay Chatham House marka ka hadlayso ka arrimahan ayaad ka hadashay waana meesha inta badan siyaasadda laga gudbiyo adduunka marka loo gudbinayo kale inta badan statementya soo saarta anagu xataa BBC aynu helno talaabo kasto dawladdu ama ha ku saxnaata ama ku qaldanaatay ay qaado ma la dhageysaa marka adinka of course madam meeshana lama keenin badana la dhageysanaynin platform taas laagna lama siiyeen waxaan ku ixtiraamayno ku dhageysanaa inay macna sameynayso doodeena waana ku ashuur galeen dadkii shalay ka soo qayb galay safaaradaha inta badan ee Soomaaliya qusayana waa joogeen qof kastana noodkeeda waa qaadatay qof kastana muhiimadeeda waxaana ka gartay discussion-kii ka dambeeyay la yeeshay wasaaradda arrimaha dibadda waxoo dhan waxay ii sheegayaan in doodahani hadda la soo rumaynayo imaanayaan waxaana waxaad u baahan tahay adiga inaad ku adkaysato aragtidaada iyo doodaada aadan noqonin qof maaragtay maalinba meeshii imaca waxa la maalinba meeshii la jira aan jirin موقف iyo mabda ay aragti lahaa data dadku way ku ixtiraamayaan baarlamaanka Soomaaliya oo hadda jira oo madaxweynaha doortay dawladda ma taqaana barnaamijyada oo ansixiya rasaarahan ansixiya waxa u dhiman muddo ka yar 10 bilood xilkiisii mana muuqato hadda tan sida hadda adigu aad arab ka dhawaajinaysa inaysan muuqan maxaad ku bedeli kartaa marka u haysaa waxaan ku bedeli karnaa dhowr moodala jirto baarlamaanka uu ku yimid waana tan hadal ku bilaabay artana si uu ku yimid embagaati si uu ku yimid kumeegaarka markii la baxay si uu ku yimid dawladda hadda xashaq u dambeysay markii ma si uu ku yimid horta afartii moodal waa yaalaan haddii dawladdu ay la imaaweyso moodal ka fiican intaasoo dhan ay noo keeni weysay mid kamida kii ugu roonaayo ugu dambeeya u noqonaynaa kii tuuntuskiisina wax barbaleen ma laha waqti ma loo hayaa waa la heli karaa hatta haddii shaqada la guda galo la bilaabo ay socotoon u jeedno inay socoto dabcan wax lagu improve gareeyo wax lagu dara loo baahan yahay sidee loo wada shaqayn karaa Puntland oo kale kuma qanacsana dib u eegis dastuurka lagu sameeynayo hanaankan doorashooyinka socda Jubaland warkeeda iska dawlad ma aqoonsana maamulkan ka laga dhisay sidee loo shaqayn karaa waxa looga shaqayn karaa dawladdu inay dhahdo waxa kale oo xagga noo dhiga waa run arinta election-ka iyo sidii awoodda dawladnimada la isku wareejin lahaa aan ka wada hadalno ay goboleedyada iyo annaga xisbiyada iyo dadkay qusaysa haday dhex keento waa dhib male dadkaas way ogolaanayaan Puntland way ogolaanaysaa annagana waa ogolaanayna Jubaland way ogolaanaysaa qof walbana way ogolaanaysaa ayaga waxaa laga rabaa inay saqiiqa gadaashiis ku dhuumanin inay talada dhexda soo dhigaan ana ku garanti gareen dadka inay ogolaadaan waayo Cabdiraxmaan laga yaabay sanad kadib in doorasho ay dhacdo ama la diyaariyo baarlamaan sanadkii xigana doorasho ay dhacdo haddii ay soo taagto musharax aad noqoto madaxweyne noqoto oo aad guulaysato Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxaad ka cabanaysaa in adiga xaf guriga la weeraray in gudoomiye baarlamaan la riday maamul gobol inuusan jirin adiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur maxaad ballan qaadaysaa oo ka qori karnaa maanta waxaan ballan qaadaya wax kala wixii dastuurka ku yaala ninku dhaqmaayo oo ku socdaan
aniga waxaan ballan qaadaya dadkaasu aragtiyadii waaweynaan kuu sheegaya balaankeyga iyo qorsheyga waa qoran yahay dukumentooda waana yaallaa dalkaasu inuu nidaam dimuqraadi ka hirgalo dalkaas inuu nidaam federaala ka hirgalo dalkaas in xuquuqda muwaadinka la ilaaliyo dalkaas in dadka soomaaliyeed lagu wado wada jir kalsoonidii yareede lasoo dhisay ee sanadahan ugu dambeeya aan soo dhisayna dadka isku soo dhowaanayeen in la xoojiyo soomaaliya mar waxaa jirta la kala tegayey oo la kala socday haddana waxaa lagu jiraa marxalad laisku imaanayo kala tagana waxay leeyihiin caqabado isku imaashahana caqabad kale leeyihiin isku imaashahana si tartiiba kalsoonida u dhismaysay kalsoonidaas dhismaysana in lasii xoojiyo dadka soomaaliyeedna reconciliation waxa la yidhaha consensus building in la isku keeno iyo compromise isku tanaasul ogol iyo isku tanaasul inay waxa ku socdaan si loo gaaro dowladnimo buuxdo aan heli karno inay muwaadiniinta gaaraan inay ka qayb galaan doorashada oo qof iyo cod ah ay ku gaari karaan guud xisbiga sidaas ma u samaysan adigoo aad hogaamisaa nacam waa u samaysay waaya aad iyo aad baad u mahadsantahay adaa mudan